إلهي وحين سي سبحانه وتعالى مسكح داني آد بأو يرتي شركة أنا مركا اللغو ميزامة بيدادان و 2.5% وزنك الشركة هيدادان و كن صدح بقول إيا صدن جرام مالها سبيكو تلماما نسكو علنتو كيلو إيا وحوغا ير ويا مسكح دكو جرتا هاوين كان بيدادان رقوا 40 جرام بكوية يعني نسكو علن أنا 40 جرام بكا كميزان يريه maskaxdaasi waxay isticmaashaa baa la yiraahdaa shidku waxaad oxygen neefsato oo dhan dib u jiido rubuc kamida kaligeed baa cunta halaali waxaad oxygen cabto rubuc kamida maskaxdaas cabta maskaxda waxa ku jira balaayiin unugya ah maskaxda inugu jirta waxay yiraahdaan 22 decimeter decimeter ka taqaanay centimeter ma hoos uga sii kac decimeter 22 decimeter oo murabbac ah yani square ah 22 decimeter intuu leegi somewhat meelahan buu leekaanaya waa wax aad u yar centimeter waa decimeter 22 decimeter oo square oo maskaxda bini aadamka ka mid bay yiraahdaan waxa ay qaadi kartaa waxay qaadi kartaa 20 milyan oo volume ama book inta ku qoran bay qaadi kartaa ma u malaynaysaa in awood inta laga wadato waa 22 decimeter in kamid oo maskaxda sidata kamidi waxa ay qaadi kartaa bay leeyihiin 20 milyan oo mujallad oo mutawasit alxajmiya waxay ku tilmaamaan مثلا أحد العلماء وبروفيسور كلا ماك روزيزن وكم من علماء مسكحة دراسيسة جامعة كاليفورنيا سنوات بدن بو دراسيني كذبوا حليه هي هديبو يري مسكحة بني آدمك مالين كستا 10 معلومات في الثانية الله شيء قبوا لي سكند كستا طبعا شيء هدي الله شيء قبوا لي سكت كوال برقصي هل كان من يتبع لحدا سكنه سكند كستا أما ثانية كستا أو كم إذا نلاش قفكة هدي الله شيء قبوا لي طبعا شيء طبعا معلومة الله شيء مدة لحدا صنادات اللجوء ده هبين إيام مالين تونا أن لك لتشوشين واحد قياسته سكند كستا طبعا بالجو شيء يا شيء لحدا صنادات بنا لجوء ضيّه هبين إيام مالين بنا والجوء آخرين إياه وحلايا معلومات كاسي مسكحة بني آدم كمبو حينيان 1 على مليون من حجم العقل بوليه 1 على مليون من حجم العقل ستدرادت بي waxay ku tilmaamaan insaanku maskaxda ku jirta awoodda alla siiyay ma ba isticmaalo bay leeyin 10% mooyaane boqolkiiba 10 ayuu ka isticmaalaa bay leeyin waxa lagu tilmaamaa qoladan computersku waxay ku xisaabtamaan gigahertz inuu processorku inta uu gigahertz uu per second jari karo waxay yiraahdaan maskaxda bini aadamku 400 milyan amaliye xisaab ay fi daqiiqa samayn kartaa waxay ku tilmaamaan maskaxda bini aadamku 30 bilyan macluuma ay fi thaniya mu'aalaja ku samayn kartaa yani computer dunida yalla saamo ma qabto waxa lagu tilmaamaa maskaxda bini aadamka iyo xidhiidhada unugyadaadu leeyihiin 600 mayl cable-ka iyo wire-ka la dhigi karo ayaa u dhaxeeya bay leeyihiin iyada xidhiidhadeeda daakiraduna waxay ku xidhantahay bay leeyihiin inta xidhiidh ay samayso waxay ku tilmaamaan axad ulculamaa baa wuxuu leeyahay haddii buu yidhi dunida waxa TV iyo telefisyon iyo raadaar iyo telegraph iyo telecommunication waxa wax lagu xidhiidhiyo dunida yaala hadii inta la yareeyo buu yiri aqli bini aadamka kala loo ekaysiiyo waxa soo dhan waxa iskaga badan buu leeyahay bini aadamka maskaxdiisa yani all telephone dunida yaala waxa laaliyo waxa switch dunida yaalo la isku daro maskaxda adiga ku saaran inta ay process gareyn kartaa ka badan sida daraadeed ayuu ahad ulama waxa uu ku tilmaamaya haddaynu isticmaali lahayn buu yiri xaasuub ama computer maskaxda uun bal ku dhow haddaynu isnaana sameeya waxa dhici lahayd buu inaynu sameeyno guri 10 dabaq ka kooban oo 770 mitir square ku yaala buu leeyahay
يعني بني آدم كيبلديسي وحي سادو اسكو خدخدو كمبيوتر aad tiraado maskaxdan yar adiga ilaahay kugu rakibay shaqaday qabato wax u eeg wax qaban kara in la sameeyo waxay qaadan lahayd buu leeyahay xajmiga 770 mitir square oo 10 dabaq kor loo dhisay xajmi xaasuub leeg buu leeyahay barnaamijyadiisa imisa la sameyn karaa buu leeyahay taayada reeba yani programska ku shaqeyn lahaa inta lagu sameyn karayo iyada reeba waxa meesha yaalla wuxuu yahay طاقada inugu jirta inta ay leeg tahay iyo waxaynu ku isticmaalnaa aad u kala yar idan inagu waxaynu shaqo ka dhiganay طاقada inta leeg ama awoodda inta leeg inaynu caatilo oo aanay waxba qabanin